حب من أول حياة وهم عيد سعيد. Let's enjoy this happy day. عيد مبارك. Come on, let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah Allah. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح يا ليلي يا ليلى وش بزنس إلك يما هو قالوا لي ليلى سيروا في القلب يغمر حبتي وكيل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد سلام كدب ولا عن جعله وحان جعلس إنا إذن لو ذاقو قصة وعجيبة قصة سواء يكون على رسول كان صلى الله عليه وسلم سيدا ودقنا رسول كان صلى الله عليه وسلم وحاول عليه سدح ويل قاسم عبد الله إبراهيم يراكس إبراهيم مرك وكجيريو ذي كدب رسول كان يسوع مرجسون أو وددا مرة وحكوري ماذا نين قاله ninka gaalka rasuulkeena cali sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku dhahay ereyo aad u xanuun badan ereyadaas oo ah waxaad noqotay keligaaga tolna meesatid cid garab ku siineysana ma lahan rasuulkeena subhanahu wa ta'ala waa uu ka murugooday ereyadaas markuu ninka gaalka ku dhahay kadib allah subhanahu wa ta'ala waxa uu soo dejiyay aayadan inna a'daynaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar waxaan ku siinayaa wabiga kawthar oo ku dhex yaal jannada wabigaas waxa iska leh rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam rabbigaaga u tuko wanhar in shani'aka huwal abtar xoolo goora masaakiintan uu qaybo kadib allah subhanahu wa ta'ala waxa uu ku dhahay ninkii adiga ku afligaaday misna ku caayay isaga nasab go'ay isagoo kaligiisa oo talniyaysan ayuu aakhir imaan doona waliba naarta ayuu galayaa sidaas ayuu dhahay allah subhanahu wa ta'ala oo rasuulkeena ku dhahay kadib waxa loo sii balan qaaday magacaaga adduunka baaq ayuu ku ahaan doona malaayiin qof ayaa kugu salin doonta markay magacaaga maqlaan walaalkayga aan jeclahay oo maad ku salisid allah subhanahu wa ta'ala ayaa ka balan qaaday rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam adigana ku sali allah subhanahu wa ta'ala iyo malaa'iktiisu ay ku salinayaan adigana maad ku salisid walaalkayga aan jeclahay waan kaaga mahadcelinayaa fursadda qaaliga ee aad isiisay daawashadeeda sidoo kale waxaa idin leeyahay caafimaadka wada noolaada اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان إن الحجاب فريضة من ربنا المنان إنا سمعنا أختنا قولا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا خياما علقت فوق الرقاب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا شيطانka hadhowti markii aakhir la tago wuxuu leeyahay qofkan aniga ma qasbin wuu inkiraaya hadaabta allah uu ka cabsanayo aniga maanta hadii aan idin horsada kabar xumaan maadaama allah subhanahu wa ta'ala isii asxaab badan marrabi asxaabteed ina xumaan u horsado qof walba hami ayuu lahaa hamiga adduunyo dhan aniga waa ka soo tagay tan aakhir la soo jeesmin faan hadda tusaale ahaan dadkan adduunka ugu sabcinayaan aakhir markaa tagtid ma ku sabcinayaan qof walba nafsadiisa uu ka fakiraayo uu shalaanaya maxad uu taageeris asaaba shalaanaya hadda wuxuu ku leeyahay waa ku taageersanaya waa ku qoslaya waa ku farxaya nafsadaada been ha u sheegin hadhowti qofkaas uu ka soo horjeesanaya sheedaan abu ka soo horjeesanaya uu ku leeyahay aniga wuu ku mali bil aadan xaq u jooga ani maadaama asxaab badan aalaya waxaan jecelahay inaan wanaag aan asxaabta kula dhaqmo xumaan dhan aan iska rab aniga dambiga iska hadaan xumaan aani horseedo wad ma